maanta waxaan ku hadlaynaa mas'ala luqda xaqa ay gabadha walaasha ay kugu leedahay maxaa yeelay markasta waxaa soo laabta su'aalooyin cajiib ah inta badan haddaan rag nahay xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey oo gabadha walaasha kula dhalatay ay kugu leedahay waxaa laga yaabaa inaad ogsooneyn inaan naftiina xasuusiyo isla markaasna aan ka digo dadka xuquuqda gabdhaha la dhashay ku tumanaya sida la socotaan walaalaha waxay ka mid yihiin raximka waxyaabaha in la xiriiriyo waajibka ay tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala ku dhaartay haddana gabadha markay tahay waa gabar daciif ah mar kasta waxay u baahan tahay sanad iyo waxay tiirsato saas daraaddeed ilaahay subxana wa taala gabdhaha xaqooda meel buu saaray markay aabbahood joogana aabbahood ayaa nafaqadooda waajib ku tahay haddii uu aabbaha geeriyoodana walaalaha ayay kusoo guuraysaa gabadha walaalkeeda nafaqadeeda laga rabaa halkaas waxaad garan kartaa marka gabadhii inay mas'uuliyaddeeda ninka walaalka uu mas'uuliyad wax ka leeyahay taasaa keenaysa marka inuu gabadha ninka mar kasta uu xasuusto gabadha walaashiisa gabdhaha nacam gabdhaha waa calool jilcan yihiin waa baari weeye walaalahood say u jecel yihiin horta ragga u jecel yihiin wiilasha gabdhaha walaalahood saas u jecel yihiin maxaa dhahay gabadha waxaa laga yaabaa inay wax kaa soo korisay hooyada adigu da inay ku dhashaa laga yaabaa oo adiga iyada ku soo korisay ku soo caano siisay hodha ugu soo dhigtay maanta waxaa laga yaabaa walaasha meesha ku dambaysay ugu hooyada kaliya aabbaha iyo waalidka hooyada iyo aabbaha walaasha ku xigto maxaa yeelay waa qof daciifa in loo naxariisto la doonayo waxay yidhahaan culammada gabdhaha ilaahay subxaana wa tacaala naxariista oo ilaahay ku abuuray qaluubtooda oo la yidhi mar kasta mas-uulka halaga naqdo hala ilaaliyo hala garab istaago waxaa weeye caatifo ilaahay ku abuuray weeye walaashaasay kuu jeceshahay adii muu jeclin walidaalika nebi muuse waxaa leeyihi calayhi salaam waxa badbaadiyey ilaahay subxaana wa tacaala markuu qur-aanka noogu sheekeynayo waxyaabaha badbaadiyey gabadha walaashiisa ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka noogu sheegay aayadaha qur-aanka oo noogu sheegay muxuu soo u badbaadiyey saad garanaysaa fircoon waxaa leeyihi markuu wiil kasta u dilayey nebi muuse markiisa sanduuqa lagu riday oo ilaahay amray inay sanduuqa ku rido gabadha walaashiisa waa jooga weyday hooyadeeda waxay u tiri waqaalat liukhtihi waxay ku tiri muuse walaashiisa waxay ku tiri hooyadaa ku dhahayso usii raacraacay tiri meesha gabadhi waxaa layidhi sanduuqay daba socotay ilaa guriga fircoon uu ka tegey guriga fircoon cid kasta ma gasha nafteeda dan u hortaa layidhi waa gashay ay marka dambe ay tiri manii sheegaa qof nin ka faala qaadayso idan sababta hooyadiis muuse uu soo noqday gabar ay ahayd walidaalika ilaahi subxana wa tacaala uu qur-aanka noogu sheegay in gabadhaas itamshi ukhtuka nabiga gabadhaas qur-aanka lagu sheegay iyadoo ukhti la dhahayo magaca ukhti la siinayo waxaa ula jeedaa saas waxaa soo naqnaqatay inta badan dad su'aalo weydiinaya dhahayo walaashay ma siin karaa zakada waa wax cajiib wey walaasha maxa inay sanad baaha inaad dembaadu ogta haddii walaasha ay faqiir tahay masruufkeeda adigu kugu waajibay ilahay ku saaray ninka ragga ah gabdhaha waa aragteen waa dadaalaan waxay leedahay nin inay guursanaa laga yaabaa walaalkeed ayay maanta dhan daba socotaa walidaalika waqtigii xajaaj ibnu yuusuf ayaa waxaa la yidhi gabar uu qabsaday wuxuu qabtay walaalkeed iyo wiilkeeda iyo ninkeeda qafaal ku qabtay markaas wuxuu ku yidhi kala dooro midaan kuu daynaa mid dooro waxay tiri nin waa la heli karaa tiri wiilna waa la dhali karaa laakiin walaal lama helaya tiri walaalkay ii day markaas wuxuu ku yidhi kulligiina ii day xajaaj ibnu yuusuf sidii kutuba taariikhda ku qoran macnaha gabadha waa laga yaabaa sacrifice inuu samayso waa arkaysaa gabdho badan oo yurub hadda soo aaday aa arkaysaa inay shaqayso maxaa dhacay guursanin ee guurkeeda dib u naqatay oo guurka ka daahay ee inta ilaahay ilma sii lahaa maxay sacrifice-kaas dhan u samaysay iyo dhibkaas waxay u samaysay walaalkeeda yarta inay soo dhoofiso talow ragga mowqafkaas idinka abaalka cala alaqal abaalkaas ma gudna annaga hadda aragnay balse xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey ayaa raba halkaa inaan ka sheego arag gabadha faa'iidada leedahay shareecada islaamka xuquuqda uu kugu waajibiyey inaad ogaatay xadiiska abi saciid alqudri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man kaana lahu ثلاث banaatin ninkii saddex gabar u dhalata oo wuxuu yidhi ثلاث akhawaatin wa fii riwaayatin bintaani ukhtaani ninkii laba gabar u dhalata iyo laba walaal gabadha walaalihiisa u dhalasha oo fa axsana suxbatahunna xiriirkooda wanaajiya walaasha xiriirkeed ma wanaajisaa mas carruurtaada keliya ka fikirtaa waddankay jirtaa waxaa laga yaabaa inay wuxuu leeyahay xaaladdeeda aad ogeyn wuxuu leeyahy wattaqa fiina falahu aljanna idan walaashay aniga aan marsuufkeeda iyo xaaladdeeda aan la socdo nebigu wuxuu ii ballan qaaday janno inaan ku galayo sidii gabdhahaygoo kale inay tahay mas-uuliyaddaasa lee saaray xadiidka kale wuxuu leey nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayadda ahayd wuxuu leeyahay ثلاث akhawaatin oo ثلاث banaatin ukhtaani hadday tahay wuxuu yihi falahu aljanna waa laftigeeda can umu salama radia allahu canha xadiiskan dhegayso
waxaa laga yaabaa walaasha ana weligaa teleefon u dirin aawicin xaaladeeda la socon inaan qabo ilmo badan ay haysataa yuruba ku nooshahay walaasha xuquuqdeeda ma siisid xataa teleefon uma dirtid xataa soomaha nabiguna wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam haddaad walaasha ka war haydid jannada ayaa ku galaysaa sidii gabadhaada oo kale walaasha carruurteeda ma ogid marsuuf ma siisid bal waxaa laga yaabaa walaasha inay xaaskaaga ugu eexatida laga yaabaa ma dhahay xaaska ha laga eexdo laftigeeda cadaalo u fal laakiin nin waxaa laga yaabaa gabadha walaasha gurigaaga inay imaan karin maxaa dhacay islaantaada ka baqaysaa xuquuqda maanta gurigaaga inay walaashaas oo gala weydo ee carruurtaada ay eedid u tahay marka maqaalibta inaan diidan maxaa dhacay waxaan ilaawna xuquuqda ilaahay na saaray xadiisku musalama dhageyso wuxuu leeyahay radiyallahu anha sami'tu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga naxariis korkiisa ahaatee wuxuu yiri yaqulu wuxuu yiri man anfaqa ala bintayn waqtayn ninka marsuuf u qora laba gabar oo dhalay ama laba gabar oo la dhashay taas maxaa gabdho badan ku dayacan yihiin Soomaaliya maxay ku dayacan yihiin Yurubtan ay ku dayacan yihiin wuxuu leeyahay nabiga alayhi salaatu wasalaam oo dawaata qarba u ah wuxuu yiri hadduu ku dadaalo kaanata lahu satratan min an-naar naarta ka xijaabayan qiyaamaha gabarta walaasha marsuuf u qorto la rabay inaa marsuufteeda digaajata waxa leedahay sanadka markii gaar zakada masiinka billahi alayhi aw xuquuqda wala waranka waxay leedahay gabadha xuquuqda kugu leedahay xaqada ad-difaac inaad difaacid gabadha inaad difaacid oo xuquuqdeeda difaacid oo rag badan ayaa waxa jir maanta gabadha walaasha ay qabaan ay ku ciyaarayaan adigina ma ku iimaan karto maxaa dhacay adiga ma kaaga cabsanayo islaamkan wuxuu qabaa gabadha walaalka oo la qabo Soomaalida mahmahdeeda markii laga soo tago ina ninkaas uu ku ixtiraamo uu yiraahdo gabadhaas nin baa isu siiyay walaalkeeda joogo laakiin gabar walaasheed uu og yahay ninka qabay inuu walaasheed soo raacdeynayo oo dhahay war ninka u tag ana hay iimaan kuma cisho karo meelan ku dhahayo ninka wuu dayacay gabdhaha qaarkood ma furna walaalna waa leeyihiin xuquuqda isma'u hada xadiis rawa imam bukhari sawri ma'qal ibn yasar radiyallahu anhu wuxuu leeyahay nin baa yimid zawajtu wuxuu leeyahay ukhtan li min rajul nin baa walaashii ku daruuray fadalaqaha waa soo furay hadduu ku ixtiraamayo ninka walaasha qabo adeegna kugu xirantahay markuu ka arko inaa walaasha garab taagantaa kugu ixtiraama laakiin walaala ah soo wiceynin aka garab haynin asagan waa cabidinaya gabadha ugu dhalatay xuquuqdeedan adaal ilaahay ku weydiinaya bixi waxa dhacay u soo cararta malaha hadduu ogaalahay inuu walaal garab taagan gabadhaas saas ma sameeyay ninka saas daraadeed macqal ibn xuurin baa gabar u dhisay aan ku dar waa soo furay xataa meelo tashanul ma ku furnay markay ciidada dhameysatay ayuu wadan yimid wuxuu gabadha mar labaad isii ilaa markay ciidada dhameysatay rajactu wax ma laha inuu doonto waliga doonto وكاسا عوري لا والله زوجتك وانكو غوري وفرشتك وانكو فراش برغير وكرمتك وانكو كرامي ولا شيء كو امني وصوفرتي والله انا كسيني يمكن النبي يسقلتك عليه الصلاه والسلام نبي كوما ايديني لكن كان هل وحبا لو ايدي ولالك حي غبدha ayu nink waarabta ninkeedina ku naqato gabdha walaalaha qaar waxa jira ayagana nin inaag isjecel oo israba inay isku laabtaan wuxuu leeyahay ninkaas mar uu xumeeyay aniga wax ii sameeyay ma ku naqan kartid ma arki karo diinta ma qabto haddii walaasha ay raali ka tahay ninkan ay ku keensatay ay ku tiri ana raali ka xaq u milidna u diidid wadaalika aayad quraan ku soo degtay macqal ibn yasaar markuu saayiri ay ninka gabadha u diiday ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu aayad quraan ku soo diray fala ta'dhuruhunna an yakahna azwajuhunna war gabdhaha walaalihiina hadday ninkooda rabaan inay ku naqdaan u diidina leeyahay nabiga uu yeeray aayadaha soo degtay macqal ibn yasaar markaasuu الآن يا رسول الله هذا أنقله لكن نبي كم عنا معقل ابن يسار ما ده محنك وجديد محيا جرب كلها لكن ولا شيء سامك لسه فتعرفت إن المهد أولى عرفت إن كذا مركز ولذلك ولا لو حجر قبل ولا شيء بيجو جرس لا ولا نكاس إنه مانع حمي نكاس وحيجو سمي محاكم حمي قبل ولا شهادة أموري عضلي إله القرآن كوادي ولذلك ولي العاضد شرع الإسلام كفقه وحقبة هذو نك أباه ده حتى قبل يسنو جوري ربنا وسبب وشيء أسوي جو على مهرنا الصغر ولايد ولا قاضي يا سلطان كقاضي تضحينا أسلمي سي واجب موتا ولا شيء نفترض إنه هرت راح هذا إنك هرتد ولا شيء درادل اسمع الحديث كجابر بن عبد الله أبي سعد قال قولت عبد الله وفوق كتجي على الله تجابر سجال قبل ولا لا سجال كي قبل ولا لا أها وسوء برباريا وحوسير قبر وجورس نينك وحوج عليه نفتيسه إنه قبر ير أو بكرة وأسوق بالله وجعلها باب جورس يري مركو جورس النبي قال ويرمان وحويري محد جورستي مركز يري قبر الإسلام وين قرابة جورس الإسلام قرابة جورس مركز هلا تزوجت وحويري بنت تلاعبها محد قبر أروسيس وبكرة وأطلع عيابتان وأسكت قبرتان نبي مركز وجوه رسولك قال له أبي وحويري مركو جيرو سجال قبل ولا لا هذا قبر أيوه كلا أداء أو كانوا
aan guurso waxa laga yaabaa inay iga daayacaan gabdhaha walaalahay saas daraadeed naftiisa oo garoob u guursada si walaalihiis gabdhaha u ilaaliyo nabiguna waa ku amaar arrintaas khayran uu yiri laka khayran oo ku yiri nabi alayhi salaatu wasalaam nabiga alayhi salaatu wasalaam gabar ma Allah nabiga siradeeda gabadha waxa la rabaa inay xariirisid aad darajaysid markay telefoonka ku soo dhigto ar walaasha ay soo wacday adiga inaa wacdid waa gurigaaga markay timaad inaa qaadid maxaa dha walaasha nabiga alayhi salaam gabdhaha walaala ma dhalan laakiin waxa jira gabdhaha ay naas la nuugina jiray waxa la Sacdi dadkii nuuji jirtay Soomaa Shayma bint al-Haritha nabiga la nuugtay nabiga ma ogso dagaalkii oo bani Sacd markii la galay alla soo qabta qafaash dadka la qafaashay ay gashay Shayma wala soo qafaalay markii nabiga aragtay wuxuu ku tiri yaa rasuulullah inni ukhtaka min ar-radaa'a rasuulku oo naas isla nuugtay walaasha ay aniga naas isla nuugteen nabiga waa yaabay gabadhii dadka soo qafaashay oo maxabiista ahaa gabar walaashiisa ku jirtay nabiga alayhi markaas wuxuu yiri wama calaamatik maxay taa yiri calaamada ayna walaalka ah maxaa ku cadeynaysaa markaas waxay tiri dhabarkaaga fiiri tiri qaniinshada anigoo yar oo isla cayaareyno naas markii isla nuugayeen dhabarka ka qaniina kugu yeelay tiri nabiga waxa xasuusay qaniinadu arkay nabiga waa isceli waayay markuu ugu horeysay wuxuu qabtay go'iisu firaash wuxuu dhulka u firaashay walaashiisa wuxuu yiri kaalay horta dhulka ka kacuur go'ayga ku firay markaas uu offer siiyay wuxuu u bandhigay adigina walaasha maxasiisa walaasha ninkii qabaada ya laga yaaba mana qabno mana marman uu maqantid walaasha faqiir ku tahay dadka kala marsuuf adigina inta aan ruqtaada ku marsuufata ma siisid wax ma siisid waajibka ilaahay ku saaray miyaad ogsooneen nabiga markuu u firaash gabadhii uu ku yeeray Shayba wuxuu ku yiri khiyaarka qaado laba arin qaado wuxuu yiri inaad nala joogtid in ahbabti fa indi hadda jecesh wuxuu yiri maanta aniga gurigayga ana ila joogaysa walaashiis waa isnaas nuugay ma walaashiis caloosh iska soo baxeen ma wali wuxuu yiri hadda jeceshayna ani agteeda joogaysa kaale hadda rabtidna wuxuu yiri wa in ahbabti amta'tuki wa tarji'i ila qomkaagu dhaqana rawaati kale waxay wuxuu ku yiri sani tuuda waxa harta weydiisay walaashayda wuxuu leeyahay washfi'i qofka harta u shaafic hebel haleeday walaasha hadii ku tiraahdo waxaan kaaga baahnaa ma dhileed kan aanu ii xireen ma dhileed nabi wuxuu yiri qofka harta deeso oo dadka la soo qafaalay waxay tir rasuulka Allah aniga walaalkayo waxaan rabaa tir ehelkayga ku noqon xaliib wiil gulaam adoon iyo gabar kala jaariyad adoomadu si wuxuu kan saay ka dhigay uu ku sii gabadha miiraasay ku leedahay dhaxalkeeda raga dhaco gabdhaha maanta markay nala soo waco waxay leeyihiin gabdhaha aniga waa ka talaalusay wiilasha ugu tanaasul maxay ugu tanaasul xaqeed maxaa wiilku xor waa inuu dhaco xaqeed inuu dhaco raba nattaqi Allah fi akhwatina akhwani